صباح لبدا xildhibaan oo la kala qabtay ka dhacday baarlamaankii maanta sida aad arkaysaan daawadayaal buuqa isa waxaan kay gacan ka hadalkaba qodoti kulankii baarlamaanka Soomaaliya maanta dhacday waxaan sidoo kale hadaad daawatay fiidiyoyada laga soo duubay waxaa ku jiray muuqaal lahaa mid soo qaado qorigii waxaa ku soo dhacay Soomaali markii la qori soo qaado waa in Soomaalida ragooda ay xariif ku yihiin dagaal iyo xasaarad fadlan Soomaaliya barta xeeladaha iyo tabta nolosha deganaan loogu maareeyo cidi ka aragtida la duwan waxa loogu yimaadaa dood iyo af la isaga dhiciyo iyadoo la isfeerin walaalayaal bil Ramadaan ayaa ku jirnaa waa bishii Allah uu ina faray inuu cibaadeysto lana ilaaliyo wanaaga sidoo kale laga shaqeeyo wanaaga Allah waxa weydiisanaynaa daawadayaal in madaxdeena bishan Ramadaan la daariyay uu ka yeelo kuwii ka cabsada Allah bishan bilaha kale way ka duwan tahay wayna ka ajir badan tahay xumaantana waa la reebay gabi ahaanba Allahna waxa markale weydiisanayna in wanaagna waafajiyo xumahana in naga reeba sidoo kale daawadayaal Ilaahay waxaan u weydiinaynaa madaxdeena iyo qulubteena Soomaali oo dhan inuu mideeyo cadaalad iyo xaq u dhax dhigo adiga iyo aniga oo dal shisheeye maanta dabarsanayna oo sugayna in dalkeena uu isbedel nabadeed uu ka dhaco waxaan hadda shaashadaha wali inooga muuqanaya qaabka ay u dhaqmayaan xubnihiina ugu matalayay golaha wadanka iyaga ayaan is ixtiraamaynin qaabkii aan uga sugaynaa in sharci iyo kala deganaan uu wadanka ay u dejiyaan nidaam oo ay ku maamuli doonaan dadkooda yaa Allah Soomaaliya u gargaar meel walba ay ku dhibaataysan yihiin dalka iyo dibaddaba nasiib xumada dadka iyo dalkaba haysata ay arrinka